gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa ku biiray caawa shirka midowga musharaxiinta ee looga tashanayo arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho la isku raacsan yahay isla markaana waqtigeeda ku dhici lahayd. kulankan oo ka mid ah kulamo xiriir ah oo musharaxiintu ay la yeelanayeen siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka, culamaa u diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa waxa uu ka socdaa goobtii uu maalmihii la soo dhaafay shirka uu uga socday xubnaha musharaxiinta ah. musharaxiintan ayaa ballaariyey dadka ka soo qaybgalaya shirka, waxaana shalay ilaa maanta ay gooni ula kulmayeen qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah oo isugu jira siyaasiyiin, dhaqan, culamaa u diin iyo qaybaha bulshada si ay u dhageystaan aragtiyadooda ku aadan arrimaha la xiriira doorashooyinka, gaar ahaan qodobada ay diiradda saarayaan musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan, Idil Raadiyaha iyo Telefishinka Dalsan, Muqdisho. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.